ماله 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 فنانكوي ay soo saarnaan reediga badan ba hadiyadiisana uu ka hadli karaa وحوب قبيليو يرحمان لدبودين وحوب قبيليو يرحمان لدبودين حدود ماله ماله. السلام عليكم ذرية فاميلي وريسية سيتين إن تعنتي مرجانية سيدا بتوصل عرفتين هردعة برنامجنا ما كنت كوسابسية هي إماتن محمد مامي يجيبوتي مناسبة ما تعني وكفى يدي سنة رمضان كي وجرجب السيئة مجموعة تيم فاميلي وحنليه حي عيد مبارك كسر دوادا ينحمان لدبود قبيليو ينحمان لدبودين حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن. السلام عليكم كسر دو برنامج كنا يو channel كنا دورية NB مقعة ولال وأقول وهاي ولا لا نصنتهاي مقعة وهذا محمد فرح maanta waan koo la dhaxmarayna mikrofoonka bulshada reer Djibouti siiba dhalinyarada waxaan doonaynaa inaan ogaano falcelinta ku saabsan imaatanka Maxamed Maame iyo waxyaabaha isla dhex socda imika marka inuu maadaama uu tiin shacabka reer Djibouti maxaad ka qabtaan arrinkaas in Maxamed Maame imaado wadanka uu show shidan ku dhigo iyo inuuna iman maxaad ka leedahay waan ma santahay walaalo aad barta ma santahay horta weydiisay taasoo in badan waan sugayna weydiyo sababta waa la inaan la kulmo ama daacada ama jib la fahmin tabaad waxaan leenahay Maxamed Maame waddanka hooyo labaad weeyaan waa dhiman kartaa in kastoo nagu raagtay bisha 12keega noo qabatay anagu waxa maslahayn ciida la ciidin marka waxaan leenahay ku soo dhawaada bulshada reer Djibouti waa ma santahay wala shaqo iska nabada koriyo waxubi nadiifo iska nabada koriyo waxubi nadiifo wuxuu ku xaradooda xishmad iyo aqoon iyo xilkas iyo wadaninimo حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعة ولال محمد موسى ما لا سعودة السوشيال ميديا أرين كان يصير السعودية كسابس فنانك محمد مامي صح كلي الله واقرت مركا waxaan doonayna in ogaado adigu maxaad ka qabtaa in Maxamed Maame wadanka Djibouti maado yeena iman amunabi adan ra'yi ka hadlo anu ma ogoli sababta fanaaniinta reer Djibouti sida yaxyay fanaaniinta naga badan marka amunabi ma وحوب قبيليو يرحمان لدبودين وحوب قبيليو يرحمان لدبودين حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن. السلام عليكم ولا المقعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونصهر لهدي بالله ما لا سعودة السوشيال ميديا iyo arrinkan la isla dhex socday ku saabsan Maxamed Maame صح أنا سعودي قرن وأنا سعودي إن كيسنا وأوجهي لكن قم عفرا يلا فنكسو دوبان ما شاء الله واد ما سنتهاي marka hadii aan si fiican fahmay waxaad kamid tahay dadka soo dhaweynaya Maxamed Maame oo ku soo dhaweynaya wadanka Djibouti صح dadka soo dhaweynaya wana taageeraya waa taageerahaygi wadankana waa wadankiisii ka u qaymanayana waa wadankiisii labadaadi qamxood baan hayba waad ma santahay walaashay adiga mudan walaal حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن. iska nabada koriyo waxubi nadiifo iska nabada koriyo waxubi nadiifo wuxuu ku xaradooda xishmad iyo aqoon iyo xilkas iyo wadaninimo حدود ماله 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 فنانكوي ينحاسد لقو نقن. السلام عليكم. وعليكم السلام. maanta fursad gaar ah ay tahay anigoo kula kulmay magaalada Djibouti youtuberada caanka kamid ah marka waxaan kaga faa'iideysanayaa barnaamijkeena maanta inaan ku weydiiyo arrinka ku saabsan imaatanka Maxamed Maame shucayb arrinka Maxamed Maame iyo imaatankiisa Djibouti maxaad ka qabtaa
aad iyo aad baan umaadsantahay samad walaalkay waan ku faraxsanahay in fanaanka maxamed maami arrinka la xiriira showgiisa amba imaatinka ku saabsan Djibouti dad walba si bay iskula qaadeen laakiin fanaanku maaragtay uu iman karayaa maaragtay show ku qabsan karayaa qadiyadiisuna duu ka hadli karayaa laakiin inaan la qabyaaladeeyo maaragtay badan la isla raaco fanaanku maaragtay waxa weeye waxa uu ka masaxay inuu maaragtay siyaasadda xal geliyo marka anigu ma arka de wax maaragtay uu iska iman karayaa soo dhawan waan leenahay fahmaysaa waa kaade ilaa imika barnaamijka intaan duubnay dadku waxay u badan yihiin in uu maxamed maami wadanka imaado waxay leeyihiin ku soo dhawow wadankaagii labaad gacmo furan marka waad mahadsantahay Shucayb وحوب قبيليو يرحم على الدبودين وحوب قبيليو يرحم على الدبودين حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن السلام عليكم مقعة magacay عليك السلام ورحمة الله وبركاته magacay waa Abdul Saad Cabdiraxiim ku soo dhawow duriyada NB waxaan maanta bulshada la dhex maraynaa mikrofoonka anagoo oo weydiinayna imaatanka maxamed maami maxay ka qabaan ra'yigooda inaan ka wareysano marka adiga ra'yigaaga maxay kula tahay maxamed ma iman karaa mise ma iman karo iyo maxamed maame inooyin damadoon anagu waa reejo kadanahay oo ka soo horjeednaa arrinka ay sababta fanaantiin reer Djibouti baa badan ba marka fanaantiin reer Djibouti aan noolaadaan waxaan doonaynaa in ciida show fiican noo dhigaan walaalkeen ra'yigiisii wuxuu noqday in fanaaniinteena reer Djibouti ay show qurux badan ay noo dhigaan marka isagu wuxuu yidhi anagu waan ka soo horjeednaa waxaan rabnaa dadkayaga dalkayaga inay nagu dhigaan show aad u shidan waad mahadsantahay walaalka حدود مالي فنانكو ينحاس وحوب قبيليو ينحوم على الدبودين وحوب قبيليو ينحوم على الدبودين حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن iska nabada kori iyo waxubi nadiifo iska nabada kori iyo waxubi nadiifo wuxuu ku xaradooda xishmad iyo aqoon iyo xilkas iyo wadaninimo حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن وحوب قبيليو يرحم على الدبودين وحوب قبيليو يرحم على الدبودين حدود مالي فنانكو ينحاسد لغو نقن حدود